run ahaantii tani waa dhacdo cajiiba dhammaanba qabsatay social mediaha. Ninkan oo magaciisa loo yaqaano Zack waxa uu leeyahay uur, isagoo dhowr bilood kadibna dhali doono. Gabadhani waa xaaskiisa, taasoo u sheegay kuna yidhi nasiino qaado, waqti xaadirkan waxaa la taagan yahay xilligan anigu caruur inoo dhali lahaa. Zack ayaa sidaa ku yidhi xaaskiisa, waqti xaadirkanna waxa uu caloosha ku sidaa waa gabadh. daawade si aad u dhamaystirato dhacdadan cajiibka fadlan nala joog ilaa dhamaadka muuqaalkan. Diana iyo Zack waxa ay ku nool yihiin Ecuador oo lagaga hadlo luqadda Isbaanishka. Diana waxa ay ka mid tahay haweenka tirada yar ee ka soo shaqeeya xafiisyada dowladda Ecuador, taasoo ka shaqayn jirtay xuquuqda bulshada nafteedana u hibaysay iyadoo u doodi jirtay. Diana ayaa afdub lagula kacay 2012 sababo la xiriira halgankeeda siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqeeda. Diana iyo Zack waxay hore u lahaayeen ilmo kaliya taas oo ay dhashay Diana. Haddaba arinku saa wuu ka duwanaaday markii ay u baahdeen in ay dhalaan ilmo labaad. Waxa ay go'aana ku gaadheen in uu dhalo ninku ilmaha labaad ee kale ee kusoo biiri doona xaafadan. Zack ayaa ku yidhi xaaskiisa waxa la taagan yahay waqtigan anigu inoo dhali lahaa caruur. Zack ayaa waxa lagu beeray ugxan taasoo u saamaxaysa ilmuhu dhali doonana in lagu qalo. run ahaantii labadii cisho ugu dambeysay ayaa dhacdadan cajiibka laisla dhex marayay social mediaha. Diana iyo Zack ayaa waxa ay ku qabsadeen xaflad weyn garoonka kubadda cagta. Waxa isugu yimid goobta iyada ah dad fara badan xafladaas oo Diana aad iyo aad ugu faraxsanayd maadaama ninkeedu uu dhali doono dhawaan. daawade haddii aan su'aal ku weydiiyo ninkani ilmaha uu dhali doono ma aabbo ayuu u noqon doonaa mise hooyo, fikirkaaga xalka commentiga nagula wadaag. sida oo kalena weligaa maskaxdaada ma ku soo dhacday arrinkan oo kale inay mar uun dhici doonto amase nin uu uur qaadi doono kadibna uu dhali doono. run ahaantii waa arrin cajiiba, dad badana ay aad ula yaabeen, dad badana ay aad uga heleen sababtoo ah waxaa jira kumanaan qof oo kale oo iyaguna sidan oo kale u dhaqma oo fikirkan aaminsan. laakiin inagu waynu ka duwanahay sababtoo ah waxaynu nahay dad muslina. diinteenuna inooma ogola manayna inoo banaynin. haddaba daawade dhacdadani siday kula tahay? waad ku mahadsantahay daawade haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka muuqaalkan. waa anigoo ah Nadra Saciid. fadlan muuqaalkan ha ka ilaawin in aad like saarto, sida oo kalena asxaabtaada la wadaagtid adigoo u share garaynaya.